wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda socdaalka adduunka IOM. Kulankan oo uu sidoo kale goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa dhanka hay'adda IOM hogaaminayay David Wombal oo ah isuduwa sare xagga mashaariicda. Waxaa kale ku wehelinayay qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiska hay'adda ee Soomaaliya. Inta uu shirka socday, arrimaha labada dhinac ay xoogga saareen waxaa ka mid ahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, arrimaha xasilinta iyo guud ahaan dib u heshiisiinta. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay wada shaqeynta ay hay'adda IOM la leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan xukuumadda, isagoona intaa raaciyay in ay si dhow ula shaqeyn doonaan. Wasiir Fiqi ayaa adkeeyay in kulankan iyo midkii ka horeeyay iyo kuwa soo socdaba uu ujeedku yahay howlo farsamo oo looga arinsanayo xoojinta dadaalada lagu taageerayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii ay u soo kaban lahaayeen deegaanada howlgallada ka socda iyo waliba xasiloonida iyada oo aysan meesha ka marnayn dib u heshiisiinta loo sameynayo beelaha deegaanada dagaalka ka socda.